iyo ay madaxda u yihiin liibaan waxaan maaragtay halkan aan uga digayaa cadaalad darro waa midii dawladdii maxamed siyaad barre dumiday iyadoo oo ay weliba ay ku timid cadaalad darradaas dadka shacabka in lagu sameeyo Saleebaanna wuu yaqaanaa cadaalad darro dawladdii ku sameeyda inay ay sabab u noqoto dumintooda sideedana waxaan la og yahay oo diintu qabtaa dawlad cadaalad ah oo gaalaahi way jirtaa laakiin dawlad muslima oo cadaalad darro sameeydaah ma dhisnaato marka dawladdii iyadoo dawlad muslima ah oo misna dagaal ku jirta in cadaalad darro ay ku sameeyo garsoorkoodii waa arrin ay aad iyo aad dawladda dumin karta oo dhibaato ku keeni karta dagaalka lagula jiro khawaarijta dhabar jebin ku noqon karta arrintaas ayaan aad iyo aad uga cabanayaa oo anigoo ah nabadoonkii gaabane wiil aan nabadoonkii si aan ahay oo la yiraahdo maxamed xaashi faarax oo bishii 9aad 7deedii nin askari ah oo taraafik ah uu ku dilay tireedishi oo isagoo u xiran oo qabiilkiisii oo boqol haraah ay la xaajoodeen odayaashii qabiilkii aan u hadlayo afkiisa ayaa waxaa dhacday in ninkii laga bedelay kiiskii oo nin kale oo jareera loo bedelay cadaalad darro intaas gaarta wax dhacay iyo wax la malaynayay iyo wax u eg midna lama malaynayo marka ilaahayna wuxuu leeyahay wa idaa qultum facdilu haddaad cadaalada qawlaysaan haddii ninkooda uu qofku qawlayo qof kastoo amiira baa la amray qof kastoo madaxa qof kastoo madaxweynaha qof kastoo garsooraa nin aad necabtahay nin aad jeceshahay cadaalad u sameeyo ilaahay leey marka cadaalad darrada halkaas gaartay ayaan ka digayaa inaanay dawladda Soomaaliya burburin oo arrintaas loo soo celiyo cadaaladdeeda wax racfaana oo ka qaadanayna lama arko annagoo ah eheladii maaragtay dhibaatadu ay gaartay arrintaas infijaar odayaasha Muqdisho joogay waa la socotaan dhaqanka reer Xaj Salaam inay hadleen senatarkii waa ka hadlay waxaan sidoo kale aan aad ugu hambalyeynaya senatarka oo asagoo xasaanad senatar iyo wasiir bahaya ka hadlay arrintaas aad iyo aad oo cadaalad darradaas ka qiiroodaan u hambalyeynaa wasiirka arrimaha gudaha oo fiqi sidaas oo kale yiri dib ha loo fiiriyo waan u hambalyeynayaa inta hadashay odayaasha Muqdisho ka hadlay sidoo kale waan u hambalyeynayaa cadaaladda u dhiidhiyay aniga arrinteedu waxa weeye cadaaladda inaan u hiiliyo cadaalad darraduna dawladday duminayda dawladdu maxaa saad barre waxa dumiya cadaalad darradaas unbay ahayd marka arrintaasaan aad iyo aad uga digayaa waanan cambaaraynayaa waxaanan soo jeedinayaa shuute iyo liibaan in xilka laga qaado haddii dawladdaas badbaado lala rabo oo lala rabo dagaalka khawaarijta lagula jiro in lagu guulaysto waa in shuute madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse waa inay dib u fiiriyaan oo kiiskan baaraan hadday ku caddaato arrintaasi waa caddahay maqal iyo muuqaalan hayaa aniga hadda moobeelkayga ku jirtaa iyagoo dadkiisi la xaajaysanay oo qiraal yihiin markhaatiyaashiyaa la hayaa arrintaasi wax geeda ku aadan ma ahan dacwadana waxaa xukumaa mudiciga dadka mudiciga oon anigu aan u hadlayo waxay dacweynayaan ninka oo dilay maxamed xaashi faarax waxaa dilay cabdi maxamed amiin ninka la yidhaahdo oo qabiilka boqol horaha la yidhaha ka tirsan ayaa dilay ma loo saari karo nin jareer weynaha looma saari karo ma loo saari karo mana aqbalayno cadaalad darro halkaas gaartana wax la arkay iyo wax laga sheekeeyo lama arko laba qof walaa taziru waasiratun wisra qura ayaa ilaahay leeyahy taas horta waa middaas midda kaleeto waxaan maaragtay aan ka hadlayaa oo raacinayaa haddii aan madaxweynaha federaalka iyo ra'iisul wasaaruhu arrintaas ayna soo dhex gelin waxaan caddaynayaa oo u sheegayaa wixii maxamed siyaad barre dumiye waaye waxa shuutay iyo